السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر بعد عشر كان مانتا وحو كسب سنة هي MS Word 2016 وحو كسب سنة دونا موضوع عن كبران دون نقاب كاللو قريو قرالك كقران دوكومنتيغا واد هادانا لو موجي اما لو سو عليو لو سو سارو وكسب سنة دونا 10 كان marka wiliga miyay ku qabsatay arintan oo kale inta document furtay oo qof ama ku soo diray ku documentan ku soo diray email-kaaga ka soo furtay ka soo dejisay aad furtay kadibna ma aragtay inay waxba ku qorneenba oo documentiga faaruq iska yahayba ya documentigu faaruq iska yahay waxba aan ku qorneen labada dhinac ma eegtay waa sidee ma dhacday ma yaabtay يا حتى بعد أرنتا أي كوكب ستة 10 كان ياد كجب بحي كرتا وكجب بقول كرتا وحيابه متقنات كجب كفتون له أرماس أما ببريتو أدو نفتر كاجا أدو دري كرتا غف تدوكمنت أنت وقارسو قرالك أدو دري كرتا CMA بدأت كلاتي وإحنا عصيني واركد أما ما هنا هدو قف كوسو دري بري وكوكو قيامو على ما كوكو ديو إن أقون ولاده إن كلاتي باس كاجا أكلو كنت جابين يب يادينا كاسي بارن دي كرتا 10 كان dhageysigiisa ayaa ka anfacayo muxuu ahaa waxyaabahaas noocaas oo kale taa marka 10 kan maanta documentigan halkan iga furan hadaad fiiriso documentiga maadaama leemankaas waxaad ku arkayso waa dareemi kartaa documentigan inuu document la isticmaalay waa iska yar dareemi kartaa laakiin mararka qaar xataa leemankaas inuusan lahayn dhici karto uusan waxbana ku qornayn qofna ku soo diray kulay wala documentiga adiga codsatay waan ku soo diray hadaba marka maxaa laga bixi karaa documentigan halkan iga furanaan waxba aan ku qorneen xagga hoosata aan ku tusiyo ilaa halka aan waxba ku qorneen haddii uu qofka ii documentan ku soo diray intaan furo noocan oo kale aan arkin way meesha waxba ku qorneen isla markaa inaan afka furtoon intaan wacdo waxa soo dirtay ma lahane niyo documentiga saxda soo atajire inaad dhahdo waa laga fiican yahay aqoontaada horta bal Word MS Word aqoontaada ku saleysan adigu dib isu xisaabo fiiri intaadan soo boodin ya marka waxaad samaynaysaa documentigan sidan oo kale taa markuu ku furan yahay waxbana ku qornayn oo qofna ku yiraahdo waxba ku qoran ku yiri adu waxaad samaynaysaa marka documentigan waxaad samaynaysaa halkaas aad tagaysaa iyada dhan waa wada highlight gareyn waxaad ku wada highlight gareynaysaa halkan aan tagayaa select all bandi ama control A baan dhahayaa sida waa taqaan haba sida lagu highlight gareeyo documentiga idil kadib waxaan tagayaa halkan meesha font ku qoran tahay qaybtan fanaxda siran qodaya kadib halkan aan imaanaya calaamadan yar click baan dhahayaa mar labaad aan ku celinayaa macnaha waxaan ka dhigayaa faaruq inay noqoto qalinkii wixii oo dhan baan ka qaadayaa calaamadihii saarnaa baan ka qaadayaa marka kadib okay aan leeyahay okay markaan dhahay documentigu wuu buuxsamayba waa soo buuxsamay documenti dhan oo dhameystiran weeyaan waa ka document dhameystiran weeyaan ya documentigi waa document dhameystiran waa ka noocaas u weeyahay ya naafanta hadaba arrimahaas maxaa lagu sameeyay sidee lagu sameeyaa 10 kan aan kaga boganeynaa insha Allah horaan u gelayaa waxaan rabaa tusaale ahaan aan dhaho documentigan waa invoice kan halkan shuruudaha kaga qoran terms and conditions waa shuruuda marka waxaan rabaa inaan daabaco laakiin shuruudahan inaan ku daabaco ma rabo waxaan rabaa bilaa shuruuda la'aantaas inaan daabaco inaan tirana ma rabo oo aan masaxo oo ma iska wada tiro dhamaanta documentigan aan ka wada tiro ma rabo waxaan sameeynaa iska qarinayaa waan daawacanayaa daawacii ii soo baxay shuruudahan ma wadanayo ya laakiin documentiga shuruudaha weli way ku sii jirayaan kasaan sameeynaa marka waxaan tagayaa halkan aan tagayaa waan qarinayaa waan harban saaraya had ama highlight gareenaya kadib ama right click aan dhahaa halkan aan tagayaa halkan calaamadan aan imaanaya hidden halkaas aan taabanaya okay baan leeyahay okay way qarsoonta markaa documentigii qoraalkii dhan meeshan wuu qarsooma halkaa ku qornaa kadib halkan aan tagayaa waan iska daawacanayaa print aan tagi برين بريفيو قاعدات فيرس قرالكي عن ماشي كترنا كمان موضوع ماشي بس
okay baan iska dhahay waan print garaysanaya halkaas ka print garaysanaya okay good haddana tan oo kale aan qariyo tan naftirkeeda aan qariyo tanna aan qariyo aan isku dayo inaan qariyo iyaduna sidaasaan u highlight garanayaa halka right click aan iska dhihi xaggaan marka hore halkaasaan ka tagay dhinacan aan ka tegayaa right click font baan tegayaa fontigan click dhigi kadibna iyadana waan qarinayaa kadib sidaasaan u qarinayaa diyaar documentigaygii marka haddaan print preview aan tago waxaa qaybtaas ii noqonaya qoraalka halkan ku jiray iyo kii halkan ku jiray labadaba waan qariyey waa kaa marka hadhowna waa lasoo bixi karaa inaan tirtiro maaha okay haddaba sidee lagu soo saaraya marka qoraalkii aan qarina sidee lagu soo saaraya laba habaad lagu soo saari karaa ko documentiga dhan control A dheh oo wada highlight garee ama halkan tag select all kadib halkaadi ku noqo waxaan samaynayaa calaamadii halkan aan u imaanaya marka fontigan tegi halkaa yaraan qodaya boxkana ii soo baxaya halkan aan tegi hal mar aan tuujinayaa mar kalena waan tuujinayaa sidii mataqaanaa calaamadan ay kaga baxdo boxkaas uu caddaan u noqdo okay baan leeyahay wakaa marka documentigii wixii dhan way kusoo noqdeen wakaa okay way kusoo noqdeen hadda haddii aan daawaco qoraalkii oo dhan buu ku daawacayaa wakaa isku daawacayaa qoraalkii dhan way wadataa hadda way siidataa wax ka maqan ma laha okay haddaba marka ciladii marka qaacidadii hadda aan u marnay aan kusoo saarnay qoraalkii qarsoonaa ee halkan aan select wada dhahno documentiga dhan aan wada select garaynay disadvantage uu lahaa ama muxuu ahaa ciladuu lahaa waxay ahayd wixii qoraal ahaa oo la qariyo dhan buu banaanka soo dhigaya qaacidadaas soo dhigaysa kulli banaanka soo dhigaysa laakiin ka waran haddii aad rabto keliya inaad qaybtan soo saarto qaybtan iskaba maqnaataba qaybtan ee iska maqnaato oo kanuun banaanka aad soo dhigto aad rabto ama kanuun banaanka uu soo baxo kaasna iska maqnaado aan ku noqona markaa daba documenti waa kana labadii qayb qoraalba way ka maqan yihiin qaybta hoose bas aan rabaa inaan soo saaro qaybta kale ma rabo waxaad samaynaysaa marka calaamadan aad tegaysaa adoo home jooga calaamada maxaa la dhahaa waxaa la dhahaa hide show hide paragraph maaga la dhahaa taasaa taabanaysaa kadib wixii oo dhan baa kuu soo baxay documentiga wixii qoraal ku qornaa dhan baa kuu soo baxay macal kuwii qarsoonaa kuu soo baxayaan kadib anigu tanaan rabaa inay daawacaadda ii soo raacdo saasaan u highlight garaynaya qalinka saarayaa okay qalinkan saarayaa kadib waxaan samaynayaa marka halkaygiiaan isaga noqonayaa fanaxdaasaan qodayaa calaamadan aan ka qaadaya markaas waxaan leeyahay okay kadib calaamadii hadda aan tuujiyey paragraph maaga ahayd baan qaadaya iyadan document dhan waan ka qaadayaa wakaa documentigii sidaasuu noqday waxaa noo soo baxay oo keliya qaybta hoose qoraalka qaybta hoose laba qayb ay qaybahan qarina soo ma aha qaybta hoose bis ay noo soo baxday qaybta kale weli weynaga maqanta okay so taasaad mataqaanaa qaybtaad ku soo bixin kartaa labada nooca loo soo saari karaa waxaa kaloo jira tusaale ahaan qaybtaasaa soo saartay waxaa dhahday waan daawaca documentigan waan iska daawacanayaa yaad ku go-aansatay waxaad tagtay file waxaad tiri print markaad halkan maraysaad ogaatay inuu halkan qoraal ka maqan yahay qoraalkaas waan u baahnaa shuruudihii inaan soo celiyo meesha shuruudihii ka qarsoonaadeen oon horey u qarinay waxaa jira inaan muujiyaan rabaa inaad laabatana ma rabtid oo documentigaad ku leedahay markaa ka dambayso halkan baad ka soo gelin kartaa ilaan adiga daawacaadii inay ka soo baxday bisaad rabtaa ilaan documentigan waxaan haddaad la qarisay haddii kaleba inay ku jiraan waad og tahay laakiin daawacaadii yaa rabtaa inuu kuu soo raaco qoraalka marka waxaad samaynaysaa halkana qodaysaa page set baa qodaysaa halka markaa kadib beeb baadan halkana qodaysaa print option aad taabanaysaa boxkana kuu soo baxay halkaa display iyadoo kuu saaran halkana imaanaysaa waxaa ku qoran print hidden text kaas qalinka saaraysaa oo aad saaraysaa tick kadibna okay aad leedahay kadibna halkana okay aad leedahay wuu kuu soo baxaya marka wakaa wuu kuu soo baxayaa qoraalkii wakaa isagoo wuu muuqanaya marka haddii aan daawaco hadda print aan dhaho daawacaadii wuu ii soo raacaya qoraalkaas okay cashirka halkaasaan kusoo gabagabeynaya haddii aad ka hesho ku anfacay fadlan like saar adiguna isdiibaangeli si aad ula socoto cashirada xiga wixii tala iyo tusaale iyo noogu reeb xagga hoose faallada inoogu reeb asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu